kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo aanu si toddobaadle ah idinka soo gudbino channelka YouTube-ka Taageera TV. Taageera TV wuxuu channel YouTube ah oo taabacsan website-ka ciyaaraha ee taageera.com. toddobaadkan waxaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha kooxda Liverpool ma soo afjari doontaa abaartii 29 sano ka haysatay xagga liiga iyo keeba u dhow Manchester City iyo Liverpool inay qaadaan horyaalka Premier League sanadkan. haddana ku horeyno kooxda Liverpool 10 ciyaarood u horeeyay horyaalka sanadka Premier League Ingiriiska waxa ay badisay 9 jeer. ciyaar kaliya la qabtay ciyaartaana waxa qabatay kooxda Man United ciyaartii classic-da Ingiriiska ku dhamatay barbadhaca 1-1. Liverpool waxay ka soo gudubtay imtixaan adag 10 ciyaarood oo horeeyay waxa kamid ah kooxda Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge kaga badisay waxa kaloo kamid ah kooxda Leicester City oo ay kaga badisay garoonka Anfield waxa kaloo kamid ah toddobaadkii hore ciyaartii sida weyn u xamaasada badnayd ee dhexmartay kooxda Tottenham Hotspur ee London ciyaartaas oo ay ku badisay kooxda Liverpool 2-1. haddaba ma la oran karaa Liverpool sanadkan maadaama oo ay haysato ciyaartoy aad u wanaagsan tababaro aad u wanaagsan inay soo afjarto abaartii 29 sano ka haystay Premier League anu waxaan oran karaa sanadkan waxa weey sanadkii Liverpool. طبعا Liverpool waxa ay dheer tahay kooxda Manchester City number 1 way ka xamaasad badan tahay oo way ka doonitaan badan tahay inay liiga qaado oo Manchester City iyadoo waxay sanadka xoog saaraysaa inay qaado horyaalka Champions League. dhinaca kale Liverpool waxa ay gaadhay heerkeedii ugu wanaagsanaa yani heer ka wanaagsan oo heerka ay gaari kartaa anu ma oran karo inuu jiro xagga kalsoonida xagga tacticada xagga physically iyo mentally iyo yani xitaa kubadda qaabka ay u ciyaarayaan kalsoonida laacibinta isku qabaan iyo xagga bislaanta ay laacibinteedu gaareen waxa aynu wada ogsoonahay saddexda laacib afka hore uga ciyaara waa Sadio Mane Mohamed Salah iyo Roberto Firmino inay marayaan xilligoodii ugu wanaagsanaa oo soo bandhigaan ciyaar week kasta qaab ciyaareed sugan oo aad loola dhacay. waxa kale oo ay Liverpool ay tahay koox dhameystiran xagga difaaca Virgil van Dijk oo sanadkii hore maxaa hayday soo bandhigay ciyaar aad loola dhacay sanadkan halkii ka sii anba qaaday ciyaar wanaagii. waxa kale oo anagu si gaar ah u jecelahay labada baasha difaaca uga ciyaara Liverpool waa Trent Alexander-Arnold iyo Andy Robertson oo run ahaantii week kasta soo bandhiga ciyaar iyo qaab ciyaareed aad u wanaagsan. waliba waxaan aad u sii jecelahay wiilka Trent Alexander-Arnold oo la oran karo Liverpool waxay ku haysataa يعني waxay baasha midiga difaaca ku haysataa Kevin De Bruyne oo kale يعني waxa weey number 10 يعني wuxuu u baasaa qaabka number 10 iyo laacibinta dhexda u baasaan wuxuu u shuudaa qaabka weeraryahanadu u shuudaan wuxuu ordi karaa qaabka ay u ordaan laacibinta baalasha ka ciyaara wuxuu u karoosaa qaabkii David Beckham oo kale kornayaasha faawalada يعني waxa weey halkeedu dhiga dhinac kasta uu ka karoosi karaa kubadda centerka garoonka uu ka karoosi karaa half space kalka loo yaqaan uu ka karoosi karaa wide ama baasha halka uu dambayso ka karoosi karaa waa laacib dhameystiran run ahaantii aad baan loo dhacay ciyaartii uu soo bandhigay kooxda Tottenham week ugu dambeysay waxa uu sameeyay 10 chance oo kamid ah ciyaartaas waxaana ka chance-yada uu sameeyay ciyaartaasi ka badnaayeen qaabka statistics sheegayaan ciyaar fursadaha ay sameysay kooxda Tottenham oo dhami. marka waxa kale oo aad i cajabay run ahaantii aniga shakhsiyan dabcan Virgil van Dijk iyo saddexda baasha hore oo la yaqaan laakiin ninka loo karo al-jundiyya la-majhuul kooxda Liverpool thermometerkeeda ama wadnaha ay ku dhaadato al-qalb naabid Liverpool la oran karo waa ninka la yiraahdo Fabinho Tavares. Fabinho waxa weey laacib dhexoo dhameystiran runtii waa nin dheer oo kubadiisu nadiif tahay si clean kubadda u baasa si fiican u jara qaabka Kanto kale u jari kara qaabka Modric oo kale u baasi kara qaabka yani hirka uu yaqaana yani waa laacib aad ugu munaasib Premier League يعني inuu DMF ama uu ka ciyaaro difaaca wallahi dhameystiran runtii si fiican buu controlay tembihi ama ritmigi ciyaartii kooxda Tottenham ciyaartii Liverpool iyo Tottenham dhexmartay. marka Liverpool wax ka hor istaagi karaba waxa kaliya aan oran karaa waxa weey
bench la'aanta yani weerarka oo kale imika waxa haystaa Divock Origi oo runtii weeraryahan iska fiicana ciyaartii Barcelona sanadkii hore wuxuu dhigay ogeyn laakiin dhinac baad moodaa tusaale ahaan oo kale imika hadii de Virgil van Dijk ka dhaawacmo kale ama de labada baalood ee difaaca waa Robertson iyo Arnold oo kale ka dhaawacmo Liverpool bedel ma haysato saddexda hore dhaawac saddexda hore nin taawadin karan kasto Origi fiican yahay ma jiro Shaqiri sanadkan ma ciyaaro dhexda way haysataa iyada bedel fiican oo Milner iyo Keita iyo Wijnaldum iyo Henderson ka ciyaara waa isku mid Fabinho inkastoo aanay haysan bedel marka laakiin sida City oo kale City sanadkii hore oo dhan waxa ka maqnaa ninka la Kevin De Bruyne haddana liigii way qaatay waayo waxa joogay Bernardo Silva waxa joogay David Silva halkan yaa jooga hadii uu sanadkan waxa ka dhaawaca Emerick Laporte difaaci laakiin Liverpool hadii Virgil van Dijk ka dhaawacmo yaa bedelo cidna ama cid u dhiganta ma jirto Van Dijk laakiin at least City waxay kaga wanaagsantahay benchka oo laacibin muhiim oo maqan lama dareemayo oo wada waxa weey natiijooyinka wanaagsan way sii wada City dabcan sidaynu wada ogsoonahay waxa la ciyaari doona laba week ka bacdi ciyaarta aadka loo wada sugay dhexmari doonta kooxaha Liverpool iyo Manchester City ciyaartaas oo la oran karo waxay xadidi doontaa Premier League sanadka عدة أولو طبعا حددي ميسي عدة قادة طبعا ليجا واحد لك على قادة بش مي سنة كصوص عطا لكن واحد حددي دونتا كوحدة أولو مقرنيسا مركز ليفربول وحنا عمسنا هيسا عيار توصل على إيرس أستون فيلا مقالة بيرمنغهام بيوصفر دونتا كرونكا فيلا باك مقالة كوحدة أستون فيلا سيتي وحي العيار دونتا ساوثهامبتون وحن فيلا لوضو بيني بديان إما كا وحاول حيال لبدو دا لحد بعود marka hadii Liverpool ay ilaashato intaanay City la kulmin 6 dhibcood waxay u baahan tahay kaliya baraajo xitaa ciyaartan kasto Anfield lagu ciyaaro ciyaarta City laakiin waxay u baahan tahay baraajo waa 6 dhibcood waxa way fariiq aad wanaagsan inkastoo de City ay kooxtay koox quality aad u fiican khibradna inay soo celiso markasta inay soo qabato kooxda hoggaanka haysa laakiin sanadkan waxa oran kara asbaabo badan oo jira awgeed Liverpool way soo afjari doontaa abaartii ka haysatay xagga liiga ee ku dhow muddada 30 sano ah daawadayaal barnaamijka faaqadada ciyaaraha oo aan toddobaadkan ku eegaynay kooxda Liverpool iyo City iyo cid u dhow inay qaado horyaalka Premier League waxaan rajaynayaa inaydan cajabisay fiidiyo gaagaaban oo waxa hayday weekly oo ku saabsan Premier League iyo horyaalada qaaradaha Yurub waan naga heli doontaan insha Allah fadlan hanaga iloobina like-ta subscribe-ta iyo share-ta waxa way website-ka taageero.com waxay la socodsiinay barnaamijka anigoo Yunus Odawa ah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh